shirkii Kampala mucaaradka iyo muxaafadka xasan sheekh maxamuud oo muuqaalkiisa la wareejinayo asagoo hadlaya maanta waa aragteen barnaamijka markaa dhameysatid sheekada sida wax u dhaceen oo dhow waa fahmi doontaa warkaa in sii marka meesha waxaa loo fadhiyey ciidamada midowga Afrika in lacag loo raadiyo iyo xilliga ay baxayaan iyo wixii la sameyn lahaa intaanan dul istaagin waxaa isla markii baraha bulshada qabsaday hadalka xasan sheekh maxamuud oo kaamirada qolka ku rakibnaa dabcan cod ahaan iyo muuqaal ahaanba ay u duubtay xasan wuxuu ka cabanayaa mudane xasan sheekh maxamuud qodob uu ka cabanayaa qodobkaas oo shir inta yani meesha la fadhiyo ninka wax akhrinayo war murtiyeedka akhrinayo waxaa ka horreeyey in qol la isla galay albaabada iyo daaqadaha ay u xiran yihiin yani shir private ah ayaa halkaa ka dhacay mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu arkay war murtiyeedkii inta aanan la akhrinin ayuu horta arkay asaga iyo kooxda la socoto xasan sheekh maxamuud markay arkeen qodob ayay dood ka keeneen xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa qodob ay dood ka keeneen qodobkaas oo ah in shirkaa asaga ah laga codsaday ereyga request waxaa rabaa maanta inaad kala fahantaan qodobkan xasan sheekh uu yani dooda ka keenay oo la bedelay iyo ereyada lagu bedelay waxaas dhan waa kala fahmi doonaa waxaa muhiim ah markiiba communique la soo saarayo war murtiyeed ereyada inaan fahno xasan sheekh maxamuud marka qolka markii lagu jiray albaabada ay u xiran yihiin oo private-ka ahaa kamarada aysan qabanin codka aan la maqli karin oo koox adiga 7 ilaa 8 ah halkaas ay ku jireen waxaa ka mid ah madaxweynaha Uganda iyo madaxda Masar halka u fadhiisa ku Ethiopia ka mid ahaaday xasan sheekh markuu wuxuu yiri intaan kale waa okay communique waa la akhrin karaa waa diyaar laakiin qodobka asaga ah ee ka hadlayo mucaaradka iyo maamul goboleedyada Jubaland iyo Puntland xasan sheekh wuxuu yiri qodobkaas iga bedela ama meesha ka saaraya la akhrinin intaas iga codsi u dhahay yaanan la akhrinin waa idin wada madax xasan sheekh maxamuud oo yani asoo fadhiyo communique lagu hor akhriyay qodobkii uu lahaa meesha ka saaranay ay ka saari waayeen halka markay marayso marka hore a idin fasaxo ninkii oo soo hor istaagay madaxdii kaameradana way socotaa oo codkii dhan wixii dhan waa live loo duubay ninkaan oo marka akhrinayo communique-ga qodobkii xasan sheekh oo iyo kooxdiisa ay lahaayeen wax laga bedelo markii la akhrinayo communique-ga waa laga bedeli waayay xasan sheekh marka meeshaas doodka keeni doonaa fartuu taagan doonaa laakiin waa kana marka hore ninka communique-ga akhrinayo ila faham meesha ninka communique-ga akhrinayo waa kan oo si uu hadalku u waday inta ka dhacday ciidamada in 2 sano loogu daro codsigaas UN ka loo diraa inta ka dhacday adiga gagabtaan kale ee wadaan waxaas oo dhan waa kan qodobka marka xasan sheekh oo miiska u fiirnaa hal mar soo kac uu yiri wah si camal maxaa dhacay qodobkaas meesha ka saar mid dhino waa kan marka qodobkaas oo ah waxaa laga codsanayaa oo midowga Afrika iyo gaar ahaan waliba dalalka ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya waxaa laga codsanayaa ereygaas codsi yani emphasize saara requested waxaa laga codsanayaa xasan sheekh maxamuud in uu shir degdeg ah isugu yeero dadka inuu shir degdeg ah isugu yeero saamileyda siyaasadda Soomaaliya waxaa laga hadlayaa mucaaradka Shariif Sheekh Axmed Cabdiraxmaan Cabdishakuur Xasan Cali Khayre iyo sidoo kale maamul goboleedyada kala maqan dowladda federaalka ah aan xiriirka wax la lahayn waxaa laga codsanayaa marka waa amar request la dawladda waxaa laga codsanayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu isugu yeero shir degdeg ah kaaga sii daranee ha isugu yeero kaliya ma aha shirkaasna waa inay goobjoog iyo kormeere ee ka noqdaan dalalka ciidamada ay ka joogaan waxaa laga hadlayaa Uganda Burundi Djibouti Ethiopia iyo Kenya iyaga inay meesha ka ahaadaan dadka hoosha kala wado shirkan teendhada la isugu imaanaya xasan sheekh iyo kooxdan isku imaanayaan waa in hooshaas dhan ee kormeere ka ahaadaan oo ay dhabarka ka riixaan ciidan ayada ciidamada ay ka joogaan horta waa kan war murtiyeedka qodobka xasan ka xanaajiyay iyo xasan fartaagana waa idin wada laakiin inta yar ila daawad Requested His Excellency Dr. Hassan Sheikh Mahmoud, President of the Federal Government of Somalia, to convene a conference of political leaders and leaders of federal member states with the heads of state and government of troop contributing countries as observers at the earliest time possible. Inta waa sida u maqash. Waxaa laga codsanaa requested Xasan Sheekh Maxamuud conference. Ergaas waa muhiim shir inuu isugu yeero mucaaradka iyo sidoo kale maamul goboleedyada. Waayo qodobkaas wuxuu u muuqataa
mucaaradka inay usoo dhiibeen madaxda halkaa fadhisi xasan waa kan marka madax sheekh maxamuud oo farti taaganayo soo idima dhihin qodobkaas Soomaaliya arrimaheeda gudaha yaa la keenin meesha soo anaga idima dhihin meesha waxa u joognaa arrimaha security-ga amniga Soomaaliya iyo al-shabaab iyo dagaalka ina ka hadalaa u joognaa maxaa qodobkaas meesha keenay kooxdeeda idin soo xiriirayso arrinkan waa in la saxo adiga xasan sheekh oo qodobkaas dood ka keenay وكذا. Political matters of Somalia is very internal, and Somalia does not want to be included in this communique. This summit was meant for security and the AU mission in Africa and the problem of financing that exists, and that has been, and the issue of Al-Shabaab and all this, that has been covered very well. But for political matters, that is internal, and with your guidance and your support and your advice, we will do that homework by our own. waayahay halkaa markay maraysa xashaq waa loo hiiliyey marka waxaa u hiiliyey Yoweri Heblow Museveni oo halkaa fadhiyo Yoweri Museveni ayaa yiri doctor ha lagu sameeyo doctor idinka doctor kaliya u taqaaniin editna waa noqotaa ereyga doctor waa in la edit gareeyo wax laga bedelo waa kan marka Yoweri Museveni oo dhahayo fiiri waxaan hadda akhriso qodobkan xashaq uu doodo ka keenay doctor ha lagu sameeyo edit ha lagu sameeyo edit iga soo bedela waxaas Yoweri Museveni afkiis ka dhahay. They have the draft of that place and they will add it in that manner. Thank you very much. Okay, so you go and doctor it. Yes, Your Excellency, we shall expand that, Your Excellency. waayahay halkaa markay marayso qodobkii asaga ahaa xasan sheekh waa laga aqbalay waa la bedelay laakiin waxaa loo bedelay luqad cajiib ah xasan sheekh uu soo qortay luqad cajiib ah xasan sheekh maxamuud uu soo qortay ayaa loo bedelay tii hore soo ma ahayn amar waa in si degdeg ah isugu keento mucaaradka iyo maxaafadka mucaaradka caawa ka xanaaqi doonaan qodobkan aad u xanaaqi doonaan xasan sheekh waa kan marka qodobka uu soo qortay ee warmurtiyeedka lagu soo daray oo berri marka waaga uu bari hadduu ilaahayna gaarsiiyo aa arki doontaa mucaaradka oo calaacal iyo dood ka keenaya qodobkan waa kan xasan sheekh oo yiri ha lagu bedelo called up on ereyga requested waxaaba laga codsanayaa ha lagu bedelo called up on waxaa lagu baaqayaa waa kan qodobka idin horyaal marka the federal government of Somalia to continue leveraging its relationship with the federal member states and traditional elders to enhance its efforts to fight Al-Shabaab oo micnaheedu uu yahay waxaa laga codsanayaa dowladda federaalku meel gaarka ah in wax alaala wixii doontaba yani isku daydo in xiriir si loola dagaalamo Al-Shabaab in ay kala kaashato maamul goboleedada iyo oday dhaqameed walahi xasan xariif qodobka isaga ah ee loogu baaqay shir isugu yeer teedhada iskugu keeno mucaaradka ay baadaan waxaa ugu soo bedeshay xasan wuxuu leeyahay dowladda federaalka waxaa loogu baaqayaa asaga soo qortay waa lagu soo daray meesha waxaa loogu baaqayaa dowladda federaalka in adiga isku dayda in la iskaashi la samaysato mucaaradka xitaa kuma jirto mucaaradka qodobka xasan soo qortay xasan xariif waxaa ku jiro maamul goboleedyada iyo sidoo kale oday dhaqameedada sheekh shariif oday dhaqameedada laga dhigtay xasan sheekh shariif iyo xasan cali khayre iyo warrinkan dhiyo xasan cali khayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo wuxuuba ka dhigtayba oday dhaqameed wakaa qodobkiida hor yaalo waxaa la leeyahay dhigaa xariif waay wuxuu leeyahay dowladda federaalka meelgaarka yani waxaa laga codsaday ama loogu baaqayaa dowladda federaalka Soomaaliya in xiriirkaas asaga ah si loo dagaalamo Al-Shabaab ee oday dhaqameedada iyo maamul goboleedada ay la samayso halkaa markay marayso qoladii ayada ahayd maanta go'aankooda ugu dambeeyey wuxuu ahaa bixitaan hadda degdeg ah Al-Shabaab dalka la wareegayso waxaasa maanta marka qof caqli la ataa diblomaasiyadda wax ka taqaanid marka waxay leeyihiin 2 sano oo si aan u baxno 2 sano hana loogu daro dhaqaalaana u baahannahay warmurtiyeedkan marka waxaa loo diri doonaa UN-ka iyo midowga Afrika iyo adduunka dhan loo diri doonaa ay ku soo gabagabeeyay waa kan xasan sheekh oo abaad ka keen arrinkaas oo leeyahay war sheekadan qodobkan ka saara maxaa yeelay UN-kii iyo waxa u diroosin African Union-kii anima ay ceebeynaysiin ay ku soo gabagabeeyeen marka hadalka xasan sheekh oo lahaa qodobkan asaga ah in isugu yeero mucaaradka shir yaan loo geeniyo This communique is going to the African Union, to the United Nations, to everywhere. Somalia is not in a position to accept that. So you remove that.